السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ilidilkiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaan ku soo dhawaada wararkii Soomaalida iyo kuwa caalamka iyo xogihii ugu dambeeyay ee bariga dhexe iyo Soomaaliya waxaynu qodobada aynu eegi doonaa kamida yuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan dalka Qatar wararkii ugu dambeeyay saraakiisha uu la kulmay aynu wax ka eegi doonaa warar kale daawanaysan waxa kamid ah jabhada TPLF oo la kulmaysa markaas guul darooyin iyo taliska Abiy Ahmed oo dib u qabsaday dhulkii ugu badnaa abid ay markaasi mucaaradku la wareegeen maalmihii aynu ka soo gudubnay warar kale aynu wax ka eegno waxa kamid ah qaraxyada shacab ay ku dhinteen oo ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo sidee ayay ku noqdeen dadkii halkaasi ka agdhow waxa la soo sheegay in dad halkaasi ay ku dhinteen kuwaasi oo ahaa kuwa markaasi dadka abaaruhu ay saameeyeen biyo gaarsiinay iyo warar la xiriira bariga dhexe oo aynu soo qaadanayna Iran iyo wada hadalkeeda hubka nuclearka 2015 iyo waxyaabihii ka soo kordhay cunaqabatayntii tan iyo muddadaasi la saaray iyo waliba qaabka wada xaajoodka iminka oo bilaabanay qodobadaasi kuwa kale aynu ku soo qaadanay u diyaar garooba daawashada wararkeena aynu ka hormarna warbixinta ugu horeysa waxayna markaasi noqonaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay Xasan Cafiif oo kamid ah markaasi xidigii xulka qaranka ee Soomaaliya ee kooxda kubadda cagta ee Horseed madaxweynaha ayaa xusay in sooyaalka iyo waayihii quruxda badnaa ee Xasan Cafiif uu ku lahaa xulka qarankeena iyo kooxda kubadda cagta ee Horseed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kamid ah taageerayaashiisa ayaa waxa uu ku amaanay doorkii uu ka soo qaatay horumarinta iyo waliba shacbiyada kubadda cagta ee dalkan hooyo ee Soomaaliya dhinaca kale ciyaaryahanka Xasan Cafiif ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha qaranka kulanka iyo qaabilaada wanaagsan uu ugu sameeyay hoyiga uu kaga sugan yahay magaalada Dooxa oo safar shaqo madaxweyne Farmaajo ku joogo waxaynu wax ka eegaynaa iminkana dagaalada markaasi faraha looga gubtay dalka Itoobiya jabhada TPLF oo la sheegay in la kulmayso guuldarooyin kala duwan dawladda Itoobiya waxay sheegtay in ciidamadeeda ay dib ula wareegeen magaalada taariikhiga ah ee markaasi Lilapela oo markaas gacanta ay ku hayeen fallaagada Tigray ama TPLF qabashada magaaladaasi ay qabsadeen ciidamada dawladda ayaa noqonaysa guush ugu dambeysay oo dawladdu ay sheegato tan iyo markii toddobaadkii hore ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku baxay furmaha hore ee dagaalkaasi uu hogaamiyo howlgalka ciidamada jabhada taageerada ee TPLF oo markaas la sheegay in taageero kala duwan ay helaysa iminka qorshayaashii dhan waxa ay ka noqdeen kuwa gabaabsi magaalada markaasi Lalibela ayaa waxa ay caan ku tahay kaniisadaha dhagxaanta gudahooda markaasi lagu dhisay oo bishii Agoosta waxaana la wareegay fallaagada TPLF magaaladaasi oo haatan hay'adaha qaramada midoobay ee UNESCO ay u aqoonsatay mid taariikhi ah ayaa ku taala gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya waxayna ahayd goob loo dalxiis tago kahor inta aysan ka qarxin colaadda dalkaasi muddaha tan laga joogo hal sano colaadda ayaa ka bilaabatay waqooyiga gobolka Tigray waxayna markii dambe ay ku faaftay qayb ka tirsan dalka Itoobiya iyadoo kooxda TPLF ay markaas isku dayayso in duulaankeeda ay ku qabsato magaalada Addis Ababa oo markaas koonfur kaga beegan gobolka Tigray ama xuduudda dalka Djibouti ee dhanka bari taasi oo muhiim u ah marinka saadka guud ahaan dalka Itoobiya ay lahayd absida laga qabay in fallaagada TPLF ay ku qabsato magaalada caasimadda ayaa keentay in bishii hore dalal dhowra ay ku jiraan Mareykanka iyo UK muwaadiniintooda ay ku booriyaan inay ka baxaan gudaha dalka Itoobiya warbaahinta dawladda Itoobiya oo soo xiganaysa afayeenka dawladdaasi Tageze Tulo ayaa waxa uu shalay sheegay in milatarigooda sidoo kale uu ku kalsoon yahay muddo yarna ay dib ugu wareegeen magaalada istiraatiijiga ee xoogagu ay dagaal ka soo qaadeen fallaagada TPLF ayaa bishii hore qabsatay magaalada Desire arrintaasi oo la arkayay in dhibaato weyn ay ku tahay dawladda maadaama ay magaaladan isku xirto Addis Ababa iyo xuduudda dalka Djibouti la wadaago dalkaasi sida ay dawladdu sheegtay magaalooyin kale oo fallaagadu ay la wareegeen waxaa kamid ah Shawa Robit oo qiyaastii 220 kilomitir u jirta magaalada Addis Ababa telefishinka u janjeera dhanka dawladda ayaa talaadadii baahiyay muuqaalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo xiran tuutaha ciidamada isla markaasina diiradda ku aadiyay dhulka buuraleyda cadowgu waa la jabiyay hawshuna waa ka harsan in cadowga xididada loo siiba ay yiri
asbuucii lasoo dhaafay ayuu hogaamiyaha kooxda TPLF oo dhambaal uu diray qaramada midoobay waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay duqeymaha markaasi diyaaradaha duuliyaha aan lahayn sida uu sheegay la beegsanayaan dadreeda. haddaba waxa uu sheegay in dowladda Ethiopia ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka heshay dalka Shiinaha iyadoo sidoo kale tan hub ka heshay wadamada Iran iyo Turkiga iyo Imaaraadka Carabta. watadaawadayaal wararkeena ayaa daawanaysaan. warar dheeraada ayaa laga helayaa qarax khasaare geystay oo barqanimadii maanta ka dhacay deegaanka Buulo Xaaji Oostaga magaalada xibeedka Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. qaraxani waa mid miino ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu haleelay gaari ay la socdeen dad shacab oo marayay halkaasi waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxa ku dhintay ugu yaraan 4 qof oo ahaa dhalinyaro iyo waliba dadkii la socday ee baabuurka qarax waalalay. wararka intaas waxay ku dareen dadka shacabka ay u gurmanayeen dadkii waxyeelada ay soo gaartay waxaana goobta ay ka soo qaadeen meydka iyo dhaawaca. deegaanka Buulo Xaaji oo qarax uu ka dhacay ayaa gudaha u galay ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalla ay ka sameeyeen deegaanka. wata daawada dhageystayaal waxaan soo gaarnay warbixinta ugu dambeeyay ee ku soo afjari lahayn wararkeena waxay noqonaysaa maanta oo Khamiis warbaahinta rasmiga ee dowladda Iran ayaa sheegtay in Tehran ay u gudbisay 2 qoraal oo qabya oo quwadaha Yurub kaga qayb qaadanayaan heshiiska nuclearka ee 2015 ee qaadista cunaqabateynta iyo ballanqaadyada nuclearka kaasi oo xaqiijiyeen diblomaasiyiin reer Yurub. madaxa wadaxaajoodka Iran Ali Al-Bakri ayaa waxa uu sheegay inuu soo bandhigayo hindise la xiriira qaadista cunaqabateynta Mareykanka iyo talaabooyinka Iran ay qaadi doonto si dib loogu soo nooleeyo heshiiska nuclearka inta lagu guda jiray wadaxaajoodka ka socday Vietnam. wadaxaajoodkaasi ujeedkiisu ay tahay in markaasi la fashiliyo. saraakiisha Iran ayaa intaas ku daraya in dalkiisu uu digniin u diray kooxda 4+1 in aysan ogolaan cid ka baxsan wadaxaajoodka in ay saameyn amaba xukun ay ku yeelato. dhinaca kale waxaa sii socda shirarka iyo kulamada u dhaxeeya wafuudda ka qayb galaysa shirkan oo looga hadlayo waxyaabihii lagu gaaray wareegii ugu dambeeyay iyada oo wax laga bedelayo qodobadii Tehran ay ku gacan saartay amaba ay ka cagajiidayso. waxaana wasiirka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir oo markaas hore u sheegay in heshiis wanaagsan markaas laga gaari karo haddii reer galbeedku ay niyad wanaag ay muujiyaan. haddaba Cabdullaahi ayaa intaas waxa uu ku daray ama qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in wada hadalka Vietnam ay u socdaan si dhab ah cunaqabateyntana laga qaadayo ayna tahay mudnaanta koobaad ee dowladda Iran. wada hadallada khubradana ay sii soconayaan isagoo carabka ku adkeeyay in wadankiisu uu raadinayo wada hadal caqli gal ah oo miir qab ah taasi oo keeni doonta markaas natiijo wanaagsan. dhankiisa xubin ka tirsan golaha sare ee muslimiinta ama maamulka Iran ayaa waxay xaqiijiyeen ama u sheegeen telefishinka Al Jazeera shalay Arbaca ahayd in dalkiisa uu leeyahay go'aan lagu xalinayo arrinta barnaamijka ee nuclearka. Aadil ayaa waxa uu sheegay in dhinacyada ay Mareykanku ay ku garwaaqsadeen in cadaadis aanun markaasi shaqayn doonin mar kalena codsiga dalkiisu amaba damaanad qaadka in dib aysan u dhicin wixii hore u dhacay amaba xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump kaasoo 2018 ka baxay heshiiska nuclearka ee dib markaas loogu soo rogay Iran. dhankiisa la taliyaha ergeyga Iran ee wadaxaajoodka Vietnam Mohammed Mrandi ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in caqabada haatan hortaagan wada hadalladu ay tahay mowqifka dowladda Mareykanka isagoo intaas ku daray in Mareykanku uu doonayo inuu sii wado cunaqabateynta dalkiisa. Mrandi ayaa intaas waxa uu ku daray in reer Yurub ay u dhaqmeen si macquul ah intii lagu guda jiray wadaxaajoodka Vietnam. gudaantaasaan kusoo gabagabeynaa wixii warar aad kala socoteen beejajkeena intayn dib kulmayna wararkan kan xiga waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. haddaad nagu cusubtiin nagu soo biro subscribe noo saara waadna ku mahadsantihiin la socoshada had iyo jeer ee wararkeena.